شاء الله معن صالح magacayga waa Axmed Cabduqaadir Abubakar ku magac dheer Axmed Lambaad ana ciyaartooyda qaranka Soomaaliya ciyaartooyda soo martay Zaraada kooxda degada macallin u weyd adiga iyo Elman saxafi iyo xol magac u dhameysaan ilaahay ma sha Allah step waxa waaye waagi hore waxay ahayd wax oo macnaha toosan oo straight ah ciyaartooyda gobolada ka imaan jireen gobolka Shabeellaha markoo kale ciyaartooyda ka imaan jirtay gobolada markay la soo xulayo waxay ahaan jirtay gobolka Shabeellaha koonfur galbeed gobolka Shabeellaha markay imaanayso marka laga soo xulin jiray Shabeellaha laga soo xulin jiray برابا laga soo xulin jiray collection ahayd Jubbaland waa ciyaartooyii hore ee Soomaaliya Zaraada dadka u caansanaa meesha ka imaan jireen Jowhar sidoo kale ciyaartooyda ka imaan jirtay marka waxaan ku maqlay in ciyaartooy nidaam ay ka soo bixi jireen si nidaam koobka u dhici jiray si nidaam loo maamuus jiray buuq oo soo jirin wixii ku soo xigo aan inta soo gaarinay ma sha Allah iyo ciyaarihii gobolada hore ka mid ahayd iyo Puntland ma sha Allah aad u fiicnaa kan hadda ma sha Allah si fiican u socda laakiin in ka soo xogaa qabsi iyo dacwad dhanka ciyaartooyda ay jirto sida dadkii ay ku maqaleen anagana aan ognahay oo hadda dib loo dhigay la dhahayo hab farsamo laakiin waxyaabaha suuqa wareegaya waxay tahay fargelinta maamulka oo xagga gobolka ciyaartooyda sharciga waa naqaanaa ciyaaryahan soo dheelay iyo Sweden ama ciyaaryahan Finland ka imaaday oo heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad ciyaaryahan dheelay Serie A ciyaaryahan siir qaran intaas inay dheelin waa si wax cad ah waxyaabaha hadda la isku haystana oo qabsiga keenayna in taas tahay taasaan filaha maasan tahay macallinkayga marna waxa waaye igu ahay kooxda degada barbaarinteeda iyo baroonigayga gacan li wax ka qaatay ma sha Allah aad kaaga mahadcelinaa mid kale markii su'aasha ay weydiisay goboladii hore oo intaan aniga jirin miya mise goboladii inta aniga soo jiray oo aan ku soo gaaray macna su'aashaas ii kala bixitaas xoogaa Allah macaan aad u maasantahay su'aal aad u fiican ay weydiisay aniga ahaan Axmed ahaan waxaan taageer u ahay koonfur galbeed ciyaarta waa fiirsaday kambida hore waxay ila ahayd macnaha ama muuqatay inay kala mudug gacan sareysay diyaar garow fiican soo sameeyay laba dhinac macal Abbas oo soo dadaalay inkastoo ciyaarta hor dhaxdeeda xataa uu bedel fiican u sameeyay laakiin dhamaadka ciyaarta barbaraha waxay ku imaatay culays badan oo la saaray galmudug macnaha u aragtaaba ama isleedahay inay almiit ahaan si dhaceen culaysna la saaray baraajina saas ay ku imaaday laakiin ciyaar fiican soo bandhigeen labada koox kuwa kale loo arki doonaa kule galmudug iyo Hirshabelle hadda waxay soo bandhigeen iyo tacticadooda iyo almiitadooda iyo qaabkooda inta baa la arkay marka kuwa kale oo qarsan saddexda kale sugan insha Allah ma sha Allah aad u socdaa waxaan la socdaa saaxiibkay iyo Maxamuud Cabdinuur Meema iyo macallin Gidaamo tababarkii ay siiyeen ciyaartooyda xushan ciyaartooy aad loo macnaha loogu kalsoonaan karo waaye maanta marka ma sha Allah waxaan isleeyahay sanadkan sanad oo wax waaye oo aad u soo bandhigi doona ciyaar fiican guushu halkeeda laakiin waxaan ka filayaa in ciyaartooy iyo diyaar garow fiican ay soo sameeyeen dhiirigelin fiican ay haystaan ma sha Allah macallinka iyo macallin ku-xigeenka iyo maamulka iyo guddiga aad u soo dhiirigeliyeen ma sha Allah wallahi horta sports ahaan maadaama ciyaaryahan soo maray filiga garoonka soo galay oo soo dhiilay banoon wuxuu yahay soo arkay laba midaan kula dadaarmaa midda koowaad waa in akhlaaq yeeshaan ay la imaadaan iyo ciyaar fiican ay la imaadaan wixii la soo baray iyo wixii lagu soo dardaarmay macallimiinta ay soo bareen ilaa macallinka kuma baray akhlaaq daro ma ku dhahay ninkaas haraanti ninkaas caay kuma dhahay 9 daqiiqo wixii oo garoonkaas ay ka helaan oo baraajo ama badis ama guul tii Ilaahay u qoray dadaalku halkiis waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed ciyaartooyda qaasatan waxaan la darmaa ciyaartooyda waa inaad dadaashiin almiitadii iyo wixii la soo baray ala imaataan waxa ku shan qaadataan waxa ku weysaan afallah amma salaf taageerasha waxaan leeyahay in garoonka soo buux dhaafiyaan iyo khaylada waa ogtahay adduunka iyo sida Liverpool oo kale iyo River Plate oo kale iyo Borussia Dortmund oo kale waa arta markii garoonka soo galaan waxa loo maleynaa sabaxan garoonka inuu dhumaay dhiirigelin u tahay ciyaaryahanka markii Bruno Dilaay taageer fiican u haysto maamulkan waxaa leeyahay ciyaartooyda moralkooda hal dhiso qalabkooda iyo macnaha wax kasta ay u baahan yihiin motivationkooda kulan kasto ciyaaryahanka inaan wax loo balan qaadin dhiin waxaas ku siinaa laakiin in kiis aan loo siiyo ninka ciyaaryahan ciyaar fiican soo bandhig la siiyo laakiin ciyaaryahanka dib wuxuu jeeyo kulanka dabis 3 kun lidin dilo xogaa pressure koray ciyaartooyda loo balan qaadin wax lacag ah wixii la siinaayo si hal loo siiyo caadi ah markay badiyaan awaalmarintooda hal siiyo haddii laga badiyo ayagana liida loo dhisay awaalmarinka hal siiyo marka ciyaaryahanka markaas performance kor u kaca laakiin adi shakhsi ahaan markii pressure uu saar lagu dhaho kulanka 5 kun lidin haddii laga badiyo laakiin wax ma lidin ciyaaryahanka qofkii intuu laba qof iska dhahayo kooxda culays saara waxaana imaanayso in pressurkii ciyaaryahanka uu ku kaco guul daro u qaato marka waxaan leeyahay maamul ahaan
haddii wax la ballan qaadayo ama la dhiibayo micnaha ciyaartooyda la siinayo motivation in joogto loo siiyo oo lagu dhigin wax hadda kulankan badisaan intaasaa leedihiin ciyaaryahankii saan samey maaha ciyaaryahankii gool dhaliyo oo kooxda ka fujiyo habeenkaas ciyaartooyda dhexdooda in lagu siiyo abaalmarin birikii dhaliyo kale la siiyo ninka caawiyo kale la siiyo laakiin yaa lagu dhigin shardi haddii ninkii gool dhaliya 500 la siinaa afar waxay maamulada hore ay la imaadeen oo lagu baaba'o waaye marka koonfur galbeed waxaan leeyahay guul idin rajeynaa all waana micnaha goboladoo dhan waa goboladeeda waa Soomaaliya waa wada taageersan ciyaarahan Soomaaliya ahay laakiin shakhsi ahaan shanta ma taageeri karin shanta daa taageer waxay limita anoo koobka taageeray marka asal ahaan waxaan ka soo jeedaa ama aan ka imaaday aan Brunei ka soo bilaabay gobolka Shabeellaha Qaasim degmada Marko saasaan ku taageeray micnaha inta inta ay ka seen micnaha koonfur galbeed waxa ugu soo celcelinaa intaas waaye waan taageersanahay macallimiinta oo galmudug wadana saaxiibadeeda waaye iyo Axmed Tahliil Daawud Cabdullah dadka garo isla soo galan waaye isla soo xifaaltanay kulli nin kasta macal Abbas oo kale waa ciyaaryahan sidoo kale marka aniga taageer ahaan shakhsi ahaan waxaan taageersanahay koonfur galbeed inta kale guul u rajayna insha Allah ininka calafkiisa siiyo guush insha Allah horta maanta waxa waaye hal fursad aan ka faa'iideysanaa oo ah in maanta oo iwareysanahay macallinkayga oo maanta aniga Bruneiga markaan soo galay filiga dadkii ugu soo dhaweeyay kamid ah aniga hobseed ka seenay ninka hobseed i baray ninkii garoonkaas ugu dhiiriyay ninkii inaan wax qabsan karo aan wax laaqo karo oo ilaa heer qaran aan matali karo ugu dhiiriyay ma sha Allah aad aan kaaga mahad celinaa waxa taa abeen labaad ma sha Allah qofkii waalidkaaga oo kale qofkii wax ku bara oo macallinkaaga ah xishmadu ka mudan yahay waan ku faraxsanahay inaan maanta janalkaaga soo muuqdo haddaan awoodo janal adduunka meesha ugu sareeyo ninka ugu sareeyo YouTube ama ninka ugu sareeyo TikTok ama ninka ugu sareeyo Facebook isla waqti xaadirkan aan ka dhigi laakiin ma awoodo laakiin waxaan ka codsanaa shacabka ciyaartooyda iyo inta ku fiirsanayso inta kale inay kanalka soo booqdaan share like comment wax kas isiyaan maca Saalax waa aabeena waa saaxiibkeena waa macallinkeena waa barbaariyeena waa macallin qalbi wanaagsan aad uu soo gacan qabtay nabaray akhlaaqda ugu dhiirin waxaan iloobi karin oo aan iloobi karin tahay mar kasta oo xasuusto inuu salaadii iyo wanaaggan ugu tarbiyin jiray ma sha Allah macallin aadan kaaga mahad celinaa mar labaad mar saddexaad mar afraad ilaa mar shanaad ma ku soo koobi karo meesha mahad celintaada waan ku mahadsan tahay kuni ku jir kanalkan waxaan rajeynaa intaan in ka badan insha Allah inuu gaaro